hadduu maanta hooyadiis waayeen anaa hooyadiis waa hooyo korinaysa ilmahan yar oo laga dhaxlay god qashin dhexdiis isagoo mid ka mid ah gacantiisa uu bahal ka cunay madaxuna uu dhiigayo waxay ahayd habeenbar qabow ilmo yar iska daaya qof weyn aan u adkaysan karin ayaa dhacayay markii qaylo itaal hoosaysa laga maqlay god ku yaala degmada Yaaqshid waxay ahayd dareen naxdin leh argagaxuna uu ku beeray laba rag oo ku baraarugtay dhacdadan markii ay la kulmeen mid ka mid ah dhalinyarada habeenkaas aragtay oo Shamso ay isgaranayeen ayaa ka codsaday in ay gurigeeda geyso ilmaha yar maadaama isagu uu ahaa nin xaasla ah reerkiisana uu ka baqay Shankaroon Maxamed oo ah hooyo keli nool ah lana daala dhacaysa korinta laba caruur ah oo ay dhashay ayaa dusha u ridatay in wiilkan yar ee waalidkii dhalay ay tuureen ay u koriso si la mid ah caruurteedaas aniga horta marka hore waxa soo wacay wiilkan taliyaha soo wacay taliye ku xigeenka Abdirsaaq wuxuu ugu dhahay baayo iyo ma waa u tagay haddaan u tagay cunugan aan meesha jiifado cunugan yaa dhalan walaal cunugan ana ku shaqada iska baxaday cunugan qashin qaba la soo helay waa aamin waaye marka hore taliye sanbalooshiya waxa ka soo bixiyeen meel oo qashin qod oo dheer oo Yaaqshid iyadoo aan dhalin wiilkaas yar haddana waxaa hogaaminaya gabadhan dhalinyarada ah dareenka waalidnimo kaasi oo sabab u noqday in dhiig iyo dhuuxba ay u shubto ilaa iyo 5 hospitaal ayay geysay si xaaladiisa caafimaad loo hubiyo wiilkaas yar iyadoo aysan cidna ku taageerin dhaqaal ahaan waxaa ka mid ah isbitaaladaasi Yaardamaali halkaas oo sheekada ay hooyo Shamso kala kulantay ay ku noqotay mid dhakafaar ku beertay maamulka hospitaalkaas ayaa u sheegay in wiilkaasi yar ee hooyo Shamso ay wado faylkiisa bukaanjiif uu ka furnaa isbitaalka muddo koobanna ay kula jireen isbitaalka laba dumar sida ku cad sawiro si qarsoodi ah aan ku helnay 22kii bishii 3 2020 ayaa isbitaalkaasi la dhigay wiilkan yar oo markaasi jiray 3 bil mana ku cadda hooyadiis marka laga reebo magac aabe oo aan xaqiijin karin oo la siiyay waxaana sida ku cad sawiradan qarsoodida ah ee aan helnay ay muujinayaan in wiilkan la yiraahdo Xuseen Maxamuud Cali taleefanka ku diiwaan gashan ehelnimada ayaan isku daynay in aan wacno hase ahaatee waa mid isku qasan lana isdaba mariyay tani oo meesha ka saartay in aan ogaado sax ahaanta taleefankan iyo qofka iska leh isbitaalka Mary waxa la ugu soo dhahay cunugan isbitaalka ku jiri jiray isbitaalkan qaybta beeshinka kor ku jiri jiray waaba la ugu qabsadaba cunugan xada qashin qoba ka soo helaan dhahay qashin qoba aan leeysiiyay anigana waxaan saldhiga xamarweyna oo bigiis u yaala haabaya xalada maxaa ugu qornayaan dhahay markaas waxa la ugu dhahay adiga wax ugu qornayna ii sheegan way diideen mardan baa waxa dhahay magacaada ma ilaa markiis magaca u baxsadaybo hada magaca u baxsaday ayaga magaca ugu qornay isbitaalka Xuseen Maxamuud Cali ugu qornay lambarka ku duwaan gashana waa la isdaba mariyay maalmo kadib maamulka Yaardamaali ayaa nala soo xiriiray wuxuuna iska fogeeyay wixii uu inoo sheegay oo ah in ilmahan yar isbitaalka la keenay dhanka kale dhaqaatiirta ay hooyo Shamso la kulantay mid ka mid ah kana howlgala isbitaalka Rajab Dayib Digfer ayaa u sheegay hooyo Shamso in ilmahan yar uu kaliya xaq alle ka nool yahay balse nabarro iyo hagardaamooyin badan oo la damacsanaa in lagu dilo lagu sameeyay halkaan hada geysanay wuxuu dhahay raajo noo diray raajadii aan keenay cunugu fiiriyay bariisa cabiray wada cunugan markiisa yar markii dhalanaya cabiro lagu soo qabtay bas hadii biro lagu soo qabtay wuxuu yiraahdeen baxa waxa isbitaal kaamil taga waxa ka soo saartiin u dhahay iskaan waa baxna isla markii isbitaal kaamil tagnay 5 saacad habeenimo بعد لها بحنا لبس عمل عشيه وحكنا ما نشان سحبنا مسكان كان نور سارة وحير دكتورك وفي عين دكتورك إذا صادر من مراقية عشان عمران قرشيس أوكي واي واحد بأوقة بنا مالهم ماذا حير موجي وحكى له أوقة ماله أوكي أنا وصاود العمر جينا الصبح دم بعدنا دكتورك وراقيش وجينا وحير هاي دكتور دكتورك فريست عمران هلو جي دكتورك وجينا دكتورك وفير وحير عمران وفي عين هاي إنكستا oo uu hadda caafimaad ahaan kuriima ahaan iyo daryeel waalidnimo intuba uu haysto Shamsana ay dusha u ridatay haddana waxay diyaar u tahay haddii ay jiraan waalidiin Soomaaliyeed oo ilmo la'aan amaba dhali waayay ay jiraan in ay siiso wiilkan yar
mana soconayo mana gurguuranayo marka ummadda Soomaaliyeed qofka wax u qaban karo iyo qofka wax u qaban karinba horta inuu Ilaahay tan ka kiciyo soo duceeyaan kii wax u qaban karo iyo oo raba oo maantana dhaqaaleysanayn waa siinaa oo waliba aan ku aamin qabo markasta ku soo fiirinayo oo ku soo salaamayo soo arkayo cunugii inkasta oo ay hadalkan tiri iyada oo beerkeedu uu damqanayo kana muuqato wajigeeda daryeelka waalidnimo iyo jaceylka ay wiilkan u qabto fadlan ka qayb qaado caawinta iyo gurmashada wiilkan yar ee ay gacanta ku hayso hooyadan Soomaaliyeed ee Shankaroon kala xiriir oo wac taleefanka Shankaroon adiga oo caawinaya wiilkan haday ahaan lahayd korintiisa iyo daweyntiisa